waxaan isugu imaan jirnay annagoo baaq jeedinayno annagoo yacni khayradhaan ah annagoo baroor diiq ah ayaan isu imaan jirnay caawa waxaan isugu nimid arrin taas ka gedisan kana farxad badan caawa waxaan isugu imaanay in aan taageerno ciidamada madaniga ee ilaalinta shacabka shabeellaha hoose midnimada ay midoobeen kadib baaqyadii aan caalamka u jeedinay khayladhaantii aan samaynay in ciidamadii deegaanka gobolka shabeellaha hoose yihiin maanta kuwa yacni cadcad oo caalamka uu aqoonsan yahay ogaadayna wixii aan sheegaynay inay dhab yihiin waxyaabihii aan sheegi jirnay runtii caalamka dhagaha uu ka faraystay dowladda dhexe dhagahay ka faraysatay laakiin maanta alla mahadiis waaye in jeexdin ay ka dhacdo waxyaabihii aan sheegaynay iyadoo xaqiiq ah oo evidence ah waa tan hadda ka dhacaysa mudug wixii aan sheegaynay waxyaabihii aan sheegaynay waa waxa hadda ka dhacaya mudug shalay markaan aan qalinaynay oo aan lahayn yacni niman afduuban habeenkii afka duubta maalintiina shaati maleeshiya ciidan wata ayaa shabeellaha hoose dhibaato ku haayo maalintii aan lahayn habeeno badan aan lahayn waa nala maqli waaye laakiin alxamdulilaahi rabbilcaalamiin maanta in ay bannaanka soo baxdo waxyaabihii aan sheegaynay iyadoo aan dawalna saarneen hubkii dowladda yacni la siiyeyna in suuqyada la keena lagula gumaado shacabka shabeellaha hoose la ogaaday united nationka waxaan u sheegaynaa golaha ammaanka in dib loogu soo celiyo soomaaliya cunuqabatayntii hubka maxaa yeelay waad ogaateen monitoring group hubkii soomaaliya yacni laga fududeeyey in lagu gumaado shacabka soomaaliyeed ee ku nool gobolka shabeellaha hoose saa daraaddeed waxaan mar labaad iyo mar saddexaad aan golaha ammaanka aan usoo jeedinaynaa uguna baaqaynaa in dib loogu soo celiyo cunuqabatayntii hubka soomaaliya maxaa yeelay dowlad hanan karta oo ilaalin karta ma jirto saa darteed hubkaasi waxaa lagu dhibayaa shacabka soomaaliyeed meel walba ay joogaan gaar ahaan gobolka shabeellaha hoose saa daraaddeed waa in golaha ammaanka hub uu yacni dib ugu soo celiyaa cunuqabatayntii hubka ee soomaaliya waxaan sheegaynay oo aan muddo badan u qaylinaynay oo aan lahayn niman habeenkii afka duubta maalintiina tuuta wata ayaa ummaddan dhibaysa waa nala maqli waaye laakiin hadda way caddaatay bannaankay taalaa waxaan la yaabanahay oo aan qaadan waaye nin dulaal ah oo maalin dhaweed hadlaayay oo lahaa nabad baan mataqaanaa dib u heshiisiin baan samaynayaa waxaan la yaabay oo aan rabaa inaan weydiiyo oo caalamkana aan qoraal ku weydiiyey oo aan leenahay war yaa isku haysta shabeellaha hoose shabeellaha hoose yaa isku haysta 8 degma ee gobolka shabeellaha hoose dad walaalaa degan dad ishaysta male dad isdagaalsan male yaa la heshiisiina waa su-aal aan weydiinayo ummadda soomaaliyeed ee caqliga fiyow iyo caalamka shabeellaha hoose 8diisa degmo dadka ku noole dad isdagaalsan ma jiro yaa dib u heshiinta loo sameynaa ma nimanka habeenkii afka duubta maalintiina magaca ciidan ku qaraabta iyo shacabka shabeellaha hoose ma la heshiisiina anigu waa garan waayo cidda la heshiisiin waayo weli su-aal baa iiga taagan cidda la leeyahay waa la heshiisiina ilaa iyo hadda aniga ma garan mana ogin caqligeega yaraantiisa aniga ilaa hadda waa fahmi waayo cidda la heshiisiinayo laakiin haddii ay jirto cid la heshiisiinayo waxaan leeyahay 8 degmo ummadda ku nool shabeellaha hoose waxay leeyihiin dhaqan iyo xeer dad isdagaalsan iyo dad la heshiisiinayo midna ma ahan marka waxaan leeyahay ninka kuntaraadka soo qaatay seedigaa baa kuntaraadkan uu u socon waayey adigana kuu socon maayo marka waxaad halmaansan tahay waa tii alla subxaanahu watacaala uu dhahay wandir cashiirataka alaqrabuun marka waxaan leeyahay walaalow inta aad baaq usoo jeedin lahayd qurba joogta shabeellaha hoose marka hore baaqaada u jeedi qurba joogta ceel buur iyo mataqaanaa galgaduud kuwaas ayaa mataqaanaa kaaga baahan kuwaas ayaa u baahan in aad baaq u jeedisid annaga ma ahan
annaga dantayada iyo dadkayaga iyo deegaankeena waan la soconaa waan la ognahay haddii wax loo qabanayo iyo haddii la duminayo annaga taa noo taalaa balse adiga waxaad xaq u leedahay oo aad yacni waajib kuga ah in aad marka hore dadka aad ka dhalatay aad la hadashaa qurbajoogta ceelbuur la hadal ayaan leeyahay ninkaasi tan kale waxaan rabaa in aan u sheego maamulka koonfur galbeed ciidamada deegaanka waa ciidamadii u dhashay deegaanka iyaga ayaana yaqaana deegaanka meelaha ay ku dhumaaleysanayaan cadowga marka ciidankaasi waxaan soo jeedinaynaa oo aan ku baaqaynaa in la taageero lana taakuleeyo international iyo mataqaana localba loo waxeeyo loo taakuleeyo maxaa yeelay iyaga ayaa yaqaana deegaankii iyagaana cadow la dagaalami kara nin banaanka laga keenay iyo nin shisheeye midna mataqaana deegaanka kama dagaalami karo saas daraaddeed waxaan mar labaad iyo mar saddexaad aan taageeraynaa oo aan taageero buuxdo taageeraynaa caawa ciidamada deegaanka ee midoobay ilaalinta shacabka gobolka shabeellaha hoose waxaan leenahay guul 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 wasalaamu calaykum